سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونعكسنا أصحابته إنتنا داوطة هل كان ومقبايها عالمي شافينو تي في واحد قصوا دباتنا داوط يلا برنامج كامية دقورك برنامج حالابك لا سعودون تام تي في عالمي شافينو برنامج كمان تبحان قصوا قادن دونا أما أنك قهدي دونا وما هي عبس دقورك أما جمفوبيا أستمع لو قرت عذرك عبس دقورك سدوك لو حان كقهدي دونا سيد لو داوين كرا وأنا جوا عبد الله موها وحينو سوتشي دونا walaalkeena aadan kaafiye mahadsan walaalkayga Cabdalamo waa markale iyo barnaamijkeeni ahmiyada guurka سعمل أصحابي سعمل أيانتان سبسكرايب إيو لايك إيو شير وحمل إذنكاي سعمل بحر سوفيو وحمل إذنكايو كوكبو سبسكرايب صار لايك جنبال كفرو شير ده مقال وقت سجارة لإنها كديه حسيتك بأديك كمده وريا حسيت لكل ولا هذا ولا قديه تاوريا مي سرت ده وكتوها كركايل وتداست هذيك الوقت نمر له بيريا سعمل ها صار وكوجدا ولا صار لايك صار وكوجدا أفرتك عنها علني سبسكرايب guurka caadi ahaan waa wax dabiici ah oo dhexmaraya noolayaasha oo dhan meel kasto ay ku nool yihiin laakiin mararka qaarkood qofka waxa la soo gudboonaada cabsi dhanka guurka ah taasi oo keenaysa qofka inuu ka baqo guurka waliba marka uu gaaro da'da guurka una helo qofta uu guursan lahaa waxa laga yaabaa inuu helay qof uu jecel yahay oo ku haboon guurka ama la wadaagi lahaa nolosha tan ugu qiimaha iyo qadarinta badan haddaba su'aasha aad isweydiinayso waxay tahay waa maxay cudurka cabsida guurka cudurka cabsida guurka waxa loo yaqaanaa gamophobia waa cudur dad badan ku dhaco qofka wuxuu gaaraa heer uu ka soo qaado guurka inuu yahay gari oo kale baqidiisa meesha ay gaarsiisan tahay cudurka gamophobia dad badan ayuu ku dhacaa rag iyo dumarba cudurkani marka hore shaki ayuu ka soo bilowdaa ilaa uu gaaro heer qofku uu awoodi waayo inuu lamaane nolol la wadaago waxa la ogaaday inuu ku badan yahay cudurkani ragga uu ku yar yahay dumarka sababaha keena cudurkani waxa kamid ah qofka oo ah qof cabsi badan caadi ahaan marka maxaad u malaynaysaa qofka kale marka uu nolol la wadaago oo ay hal meel wada seexdaan taasi waxay keenaysaa inuu cabsi ka sii qaado xiriirka guurka waxa kale oo keeni kara qofka marka uu la kulmo noloshiisa xaalad aad u xun ama dhacdo naxdin leh oo xiriir leh guurka taasoo maskaxdiisa ku abuuraysa inuu yahay guurka wax xun haddaba su'aasha aad isweydiinayso waxay tahay astaamaha lagu garto qofka uu hayo cudurka cabsida guurka astaamaha lagu garto qofka uu hayo cudurka cabsida guurka waxa kamid ah qofka aan lagu soo qaadi karin sheeko guur ama inuu diidayo marka ay u soo bandhigaan waalidkiisa inuu guursado gabar waxa laga yaabaa inuu dib u geysto qofkii guur ku soo qaado ama ku soo sheeko qaado waxa dhici karta xitaa ama ku suurtoobi karta inuu dilo qofkaasi waxaa dhacday nin u dhashay dalka Indonesia ayaa ahaa nin doob ah haweeney dariskiisa ah ayaa maalin walba waxa ay dhihi jirtay goormaad guursanaysa ninkii ayaa naagta cuqdad iyo nacab qaaday markii ugu dambeysay uu dilay guurku oo laga boqo waa cudur aad u daran waxa kale oo qofka ku abuurmaya marka uu guursado inuu fashilmayo ragga qaar waxay ka baqaan habeenka aqalgalka inuu xaaskii qancin waayo taasoo mararka qaar dhacdo waxaana sabab u ah cabsida iyo fikirka la xiriira guurka haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay waa maxay daawada cudurka cabsida guurka ama gamophobia daawada cudurka cabsida guurka ama gamophobia waa qofka in si nafsi ahaan loo daaweeyo waxaana ugu fiican in qofka ilaahay diintiisa qabsado oo la yimaado iimaan xoog leh markaas wuxuu garan karaa nolosha adduunka waxa ay tahay waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin inta aan ku kulmi doonno barnaamij kale oo xiiso leh oo aan kaga hadlayno arrimaha guurka aniga iyo Cabdalamo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo